وآذانka labaad ee salaada jimcaha muslimiintu waxa ay isku diyaarinayaan in ay gutaan waajibaadka salaada. تحدثنا عن حال أمتنا الصومالية. كني وشيخ عبد الحي الشيخ آدن وقضيب كمسجد كعنك عمر بن الخطاب oo ku yaala magaalada Muqdisho waxa uu halkan ka jeediyaa jimca walba khudbadda salaadaha jimcaha taas oo saameyn xoogan ku reebta nolosha iyo qalbiyada kumanaanka muslimiinta ah ee ku xiran shiiqa. Jameecada masjidka Umar bin Khattab ayaa soo buux dhaafiya gudaha masjidka iyo nawaaxigiisa waxay ka yimaadaan xaafadaha degmooyinka fogfog ee gobolka Banaadir iyo duleedka caasimadda. khudbadda Sheekh Cabdulxayi waxay ka kooban tahay laba qayb oo saameyn badan. qaybta koobaad waxa uu muslimiintu ku xasuusiyaa maalinta abaalmarinta bashar walba ee qiyaamaha. sidoo kale qaybta labaad waxa uu sheekha diradda ku saaraa dhibaatooyinka iyo mushkiladaha dalkeena iyo sida loogu sabri lahaa. haddaba maxay cirka u gashay oo ay saameyn u yeelatay khudbadda maalinta jimcaha ee Sheekh Cabdulxayi? su'aashaas waxaan hor dhigay isla Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadan. طبعا خطبة سي أصل باللوجو تلا جريد أكتيهين ومالنتا أو مسلمين تا أسبوع أو ضمانة أيو أي تكنا أيان مالنتا جمعة ومالن أي سوء إيمان أيان أو يعني سوء إيمان شفي عن أو لديه كرو أسبوعي كلن كيسي أيي تهاي مركا دت كاس أيجو ملفو كإيمان أيا أيجا يعني سو خرج كرينا أيا وحي مدنيهين إن احترامه درين كودا baahidoodana laga jawaabo. marka waxaan isleeyahay maadaama aan isku wadno labadii dhinacba xusuusintii aakhiradooda iyo tarbiyadii iyo naftii oo la taskiyeeyo oo dambiyada laga ilaaliyo oo wacdi ah iyo khudbada kale oo ah jaanibkii kale oo ah waaqaca iyo nolosha lagu nool yahay oo ayadana in la hagaajisto ay muhiim u tahay in khudbadii ay ku wada jirto taas inay keenayso marka saameynta ay leedahay. marka waa un arrimo noocaas oo kale oo dadka dareenkooda in lala hadlo ayaa muhiim ah. marka dareenkooda ayaan la hadlaa. dadka ku xiran khudbadda Sheekh Cabdulxayi waxay iskugu jiraan dad ah dhalinyaro iyo caruur aan wali qaangaarin. waxay intooda badan isticmaalaan teleefanadooda gacanta si ay u duubtaan khudbadda shiiqa. dadkan waxay soo jiraan masaafo dheer iyagoo muddo dheer ku xiran shiiqa. magacaygu waa Maxamed Shariif Xasan Ibraahim waxaan ka imaadaa Bakaaro. waxaan runtii darsigan oo aad u muhiimka khudbada ayaan aad ugu taxanahay jimco kaste uu qabto sheekhaani Sheekh Cabdulxayi. sidaas oo kale waxaan ku taxanahay duruustiisa hore u dhamaatay laakiin tafaasiirta iyo ay kutubo badan ayaan ka faa'iideystay khayr Allah si sheekhana amrigiisa Allah noo dheereeyo. marka dareenkayga markaan ka hadlo khudbada aan ka hadlayo waa runtii saameyn weyn ay kugu leedahay ta'thiir iyo yani waxay badan ayaa iska bedelayo. aniga waxa la yiraahdaa Ismaan Ali Sheekh Maxamed ala dhaha suuqa xoolaha khudbada ka soo aadaa adiga saddexdii jimcaba ma mar imaada markasta ma imaado. marka sheekhana macnaha khudbadiisa oo wanaagsan oo maaragtay oo xadaariga ah maaragtay aan u soo aadaa. waxaan deganahay suuqa xoolaha waxaan ka deganahay gaar ahaan xaafadii la yiraahdo waxa la yiraahdaa Diris Roone oo laamiga agtiisa ah rawdatu caaliya agteeda masaajidka Rusheeya macnaha aan ku dukadaa meeshaas aan deganahay. marka sheekhaas khudbadiisaas oo wanaagsan ayaan u soo aadaa meesha mar walba. maba ku maqlaayeen asaga isku mashquulsan haddaad marka iska xamanaysid. qeybaha ugu xiisaha badan ee khudbadda ayaa ah marka la soo gaaro qaybta tacliiqa ee khudbadda. Sheekh Cabdulxayi waxa uu qaybtan isticmaalaa sheekooyin xiiso badan iyo xigmado cajiib ah. walaalo la ahaado wax ka fiican ma jirto. maxamed Sheekh Cumar Aadan waxa uu 30 kiiloomitir uga yimaadaa khudbadda maalinta jimcaha ee Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadan. jimco kasta waxa uu salaada ku soo tukadaa masjidkan waxaana noloshiisa bedeshay khudbadda shiiqa. magacaygu waa Maxamed Sheekh Cumar Aadan waxaan ka imaadaa degmada Afgooye waxaan ugu imaadaa yani khudbadii tareenkayga haddaan ka hadlo waxa waaye Sheekh Cabdulxayi khayr Allah siiyo sheekheena macallinkayga khudbadiisa waxa la asiga aad iyo aad ay saamaysaa. waxaan kula taxanahay muddo Sheekh Cabdulxayi Allah khayr siiyo sida tusaale ahaan
wacdinta iyo waaqicii khudbada markaas taagan yahay uu ka hadlaayo aad ayay saameyn igu yeelataa waan wax badan iska bedelay markaan waxa waaye aan ka hadlo yacni khudbooyinka uu soo jeediyey sheekha allah matawaagiisa ama makaan hooyadkiisa jannada allah ka dhigay sheekha maasha allah cumrigiisna allah noo dheereey sheekh cabdulxayi waxa uu hawshan ku jiraa muddo ka badan 10 sano haddaba maxaa uu la kulmay oo saameyn ah taas oo kaga yimaada dadka ku xiran khudbadiisa waxaa ka mid ah yani saameynta khudbada waxaa lagu gartaa oo ka mid ah qofka maalan haddii uu waxyaabo aan fiicnayn mararka qaarkood ay ka dhaceen oo xusuusin la xusuusiyo toobadkeen inuu fiican yahay qofka inuu isbedelo inay fiican tahay nin dhalinyaro ah intuu kuu yimaado inuu kuu sheegto waxyaabo asaga u gaar ah oo xanuun gaar ah asaga ku hayey oo uu talo inuu kaa weydiiyo uu rabo uu kuuna qirto xataa waxyaabo dembiye ah oo ka dhaceen inuu ku yidhaahdo dembiyadaas ayaan galay inaan ka toobad keenaan rabaa maxaan sameeyaa taas waxay kutusaysaa niyad sami iyo qofkan damiirkiisa oo ay nolol ku jirto inkasta oo wax ka xumaadeen bini aadam ayaa wax ka xumaanshaha loo yahay intii uu qarsan lahaa oo uu dembigii sii wadi lahaa inuu ku soo dhiirado kalsooni ayay arrintaas ayada igu beeraysaa waxaa ku xiran khudbadda sheekh cabdulxayi sheekh aadan boqolaal muslimiin ah oo ka kala yimaada xaafadaha iyo degmooyinka fogfog ee gobolka banaadir dadka qaarkood oo halkan yimaada waxay sheekha ay ku xiran yihiin muddo dhowr sannadood ah waxaana ay ku taxan yihiin khudbadihiisa iyagoo saameyn ku yeesha inta badan noloshooda markay dhegaystaan khudbadahan cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid rashka muqdisho cable TV masjidka cumar bin khadaab magaalada muqdisho